ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا إلى الدنيا كي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات men and women إلهي سبحانه وتعالى wuxuu diyaariyey مغفرة dembi dhaaf وأجرا عظيما ذكر الله تبارك وتعالى waxaa weeye shaqada ugu fudud cibaadada ugu fudud waana cibaadada ugu ajrba عجيب how come the easiest ibadah you do it is dhikrullah cibaadada ugu fadli badan waa dhikrullah tabaaraka wa ta'ala cibaadada ugu fudud the most easiest deeds or work you do or ibadah you do is dhikrullah. Why? If you are sleeping, you can do it. If you are sitting, you can do it. If you are walking, you can do it. If you are riding the car, you can do it. If you are waiting for somebody in the school or in the reception, you can do it. Wherever, you can do dhikrullah tabarak wa ta'ala. You cannot do many ibadat like that. cibaadooyin kale saa uma samayn kartid meel kasta oo joogtood ku samayn kartid adoo hurda adoo socda adoo jiifa adoo fadhiya adoo gaari wada ya adoo tareenka saaran adoo diyaaradda saaran ya wherever you are in any place in anywhere waa samayn kartaa subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar هل حادث عند حسنا النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب أيا أيم النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب أيا أيم النبي عليه الصلاة والسلام and he asked him O Prophet صلى الله عليه وسلم صلاة ديدا means عبادة دي ذكر جيجا how come if I give you a quarter of that ربع ذكر جيجا my time if it's 12 hours 4 hours I will give that for الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه he said that's good وفي عنتها haddaad ka badisana aday ku fiicanta said okay rasuulka allah nus haddaan ku siiyo cibaadadii dhikrigayga haddaan ka dhigo salliga nabiga calayhi salaam waqtigayga ducadayda nuskeed haddaan ku siiyo he said waa fiican tahay good and if you do more it's better for you haye rasuulka allah thuluthayn haddaan dhikrigayga ku siiyo here is good and if you do it more it's better for you
said ducadayda oo dhan haddaan adiga kaaga dhigo salliga calayhi salaam salliga nebiga calayhi salaam maanta oo dhan iska allahuma salli calaa sayidina maxamed 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 haddaad socoto jaranjarada haddaad ka degayso guriga haddaad fuulayso jikada haddaad ku jirto wax karinayso allahuma salli calaa sayidina maxamed yeah. He said idan tukfa hammuka wa tuqda xaajatuka haddaad saas yeesho hamigaagana ilaahay uu kaa qaadi ma haminaysid stress forget about it yeah the disease of this time caruurtii gabdhihii wiilashii kullu waxay ku stress we have stress yeah pressure yeah no pressure no time no stress at all if you make salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam you have no stress. If you make dhikr to Allah subhanahu wa ta'ala, no stress, forget about it. تكفى همك وتقضى حاجتك. And again, you will get whatever you like. Alhamdulillah. إذن ذكر الله تبارك وتعالى وحوي أسبابته وقوة المحبة إلهي لغوه له